أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. afurwadareed uu soo abaabulay maamulka iskuulka Focus Learning Academy ee gobolka Ohio ayaa lagu qabtay isla iskuulkaasi waxaana ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo ka kala socday qaybaha kala gedisan ee bulshada isla markaana ay ka mid ahaayeen dad muslimiin iyo kuwa aan muslimiinba ahayn. ujeedada ugu weyn ayaa ahayd muujinta ahmiyadda Ramadaanku u leeyahay bulshooyinka Islaamka ah iyo waliba in la tuso in dadka aan Islaamka ahayn ay wax ka bartaan haddii Ilaahay hanuun uu ku siinayo qaar ayaga kamid ah. inta badan dadkii ka soo qayb galay afurkani ayaa waxa ay uga mahad celiyeen maamulka Focus Learning Academy dadaalka uu muujinayo sanadkii saddexaad oo uu qabanayo barnaamijkani. I am really grateful to everybody who's here. I am grateful to our community, to our friends and families, and our colleagues who came here today to celebrate this iftar dinner with our community. Each year that we have been doing this iftar dinners, we had a theme, and today's theme is about the volunteers in our community who have done so much good past year. And I would like to recognize those volunteers who spent today working in this facility to decorate it and make it nice. Generally, around this time, Muslims will break fast. They will drink a little bit of water, maybe eat a little bit of dates, and then for those of us who pray, we'll walk out of the place. The rest of us who do not pray will stay behind to network. The good thing about that is that, you don't have to join in the prayers if you are not practicing Muslim. So the Muslims will go ahead and go outside to pray, and the rest of us who are not going to pray will network, say hello to one another. And the prayers usually don't take too long. It will take about 3 to 4 minutes, and then we are going to have dinner. And I hope for all of us to have a wonderful food and companionship and develop networks and friends and people to know one another. xildhibaan Muniira Cabdullaahi oo ayadu xildhibaanka laga soo doorto xaafadda iskuulku ku yaala ayaa ka hadashay halkaasi waxayna iskuulka iyo maamulkiisaba uga mahad celisay doorka ay bulshada ugu jiraan. This is my district, so welcome to District 9, the best district in Columbus. I just wanted to welcome you all and thank you for the Focus Academy for doing this community iftar. It's very important for our community to come together, now more than ever. I don't know if you all know, but today is actually the Islamophobia Awareness Day. And the reason for today being Islamophobia Awareness Day is that it's actually the anniversary of the Christchurch massacre, where individuals were killed during Jum'ah prayer in Christchurch, New Zealand. And my grandpa was actually one of those individuals, Allah yarhamah. And he became a shaheed that day. But that day reminds us how important it is for our communities to come together, to be strong, to advocate for justice, to advocate against hate, to protect one another, to protect all communities who are in danger of being harmed by hate, to protect these beautiful children who are in danger of being harmed by hate, now more than ever. So again, thank you all for coming together. As you go through this Ramadan, remember and ask yourself, what can you do to make sure our community is safe for everyone? To make sure these children can play safely at home, everywhere, outside, at the masjid, that no one fears for being themselves, for worshiping, for going to school, for going to work. And within our community, we keep each other safe, and we can continue keeping each other safe. So jazakumullah khair. Thank you guys for coming today. Thank you Focus Academy for hosting this. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay barnaamijka ayaa dareenkooda waxa ay ku muujinayaan sida tan. Wassalatu wassalamu ala rasuulillah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh. Maantay waxaan isku nimid xafladda ama afurka saddex jirsaday ay sameeyaan iskuulka Focus Learning Academy oo ah sanadkii saddexaad runtii farxad been noo ahayd aan ka soo qayb galno xaflad muxuu ahaa afur wadareedka ay sanad walba ay noo diyaariyeen muslimiinta reer Columbus waa mahad celinaa iskuulka maamulka iskuulka Focus Learning Academy iyo staffkiisa iyo maamulayaashiisaba sida wanaagsan ay community-ga runtii shaqada wanaagsan u hayaan iskuul Focusna oo ah iskuulka Soomaalida ugu weyn magaalada Columbus runtii barnaamijkaas wanaagsan u istaagan oo madana ku afriyaan magaalada isku aragto ka soo qayb galaan waa runtii waa ku bogaadinaynaa anagana waxay noo tahay farxad inaan ka soo qayb galno xafladan afurka maanta. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu ala rasuulillah. Waxaan joognaa Fox Academy aan joognaa maanta, alxamdulillah.
dad badan isu yimaaday oon ku afurnay arrimahan oo kale waa loo baahan yahay at least muslimiinta hal meel ay ku wada yimaadaan oo lagu wada afuro alxamdulilah waaye reer Columbus afuradan oo kale hala badi insha Allah taala iskuulka wuxuu ku yaalaa 161 ku yaalaa afur fiican waa ku wada afurnay waa la wada kulmay muslimiin dad muslimiin ahaanbo إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظي بارك الله فيكم السلام عليكم بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم maanta waxaa ku sugannahay Focus Academy every Ramadan ama Ramadan waliba halkaan iskugu imaanaa waxaa lagu casuumaa dadka muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn si dadka muslimiintana iftaar jamaaci ama hal meel ay ugu wada afuraan ku wada duceystaan khayrka isku faraan wanaagga isu sheegaan munkarkana iska reebaan halka dadka muslimiinta ahayn lagu gaarsiiyo diinta islaamka that waa reasonka ilaahay noo abuuray subxaanahu wa tacaala sababaha halkaana u joogno ilaahay noo keenin waxaa qayb ka ah inaa macruufka iyo wanaagga afarno dadka walaalaheen muslimiinta iyo dadka muslimiinteen diinteena inaa gaarsiino allah subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo khalqigeen wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun insi iyo jinba ilaahay subxaanahu wa tacaala sababu abuur waxaa weeyaan cibaadada sida ramadaanka salaada iyo annaga ka muslimiin ahaan maadaama ilaahay nagu fadilay subxaanahu wa tacaala diintan uu ilaahayna siiyey nimcadan subxaanahu wa tacaala in dadka muslimiinta ahaanna wanaagga islaamka gaarsiino qof kastoo muslima nafteyda iyo naftiinaba waxaa ku dardaarmayaa sababaha waddamadan qurbaha u joogno ma aha in nolol uun keliya ka raadinno laakiin waxaa jirto arrin muhiim ah runtii qaarkeen aysan ogeen arrintaasna waxay tahay diinta inaa faafinno oo qofka muslimka ahayn hal eray ama laba kelimo waxa u sheegi karto diinta islaamka ugu sheegto kutub ama bugaag islaam ka sheekayna in gaarigaaga ku wadato qofkaas sii karto waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna daawanayaa wuuna imtixaamayaa wuxuu nagu imtixaamayaa shaqada halkaana u joogno iyo waxa aan samaynayno rasuulullaahi sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay balliquu cannii walow aaya kelima ama laba kelimood xitaa qofka wanaagga u sheegto ama wanaaggaaga xitaa qofkii aad tusto inaa wanaagga iyo khayrka waa risaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوة رمضان كي هايشان يطبن وحان جوجنا IMAC سنتر إمام محمد سنتر وسنة كي لبعض أفريقيا أي نوجو قبتين فوكس ليرنين أكاديمي كوميونيتي المسلمين تا هالكان دقن كولومبوس أوهايو waxaan ugu mahad celinaynaa Focus Learning Academy sida gathering-ka ah ee mar walba maaragtay u sameeyaan community-ga ay u caawiyaan iskugu keenaan waxaan leenahay muslimiinta meel walba ay joogaan Ramadaan Kariim Columbus Ohio sidoo kale dadka degan Columbus Ohio sidoo kale waxaan leenahay Ramadaan wanaagsan sanadkan sanadkiisa khayr Allah nagu gaarsiiyo reer Columbus dhammaan insha Allah taala waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء حالي رضا روضة عبد العزيز حسن. حكمت هاي والدين تأيو community كولومبوس أوهايو كنول. عاو حاسكوجن نمت إفطار أو محل ده هاي أفر. آدي وناكسن قبتي Focus Academy Learning أو كولومبوس كيالو شار سكول أو قبتي community كولومبوس دجن هذا مسلم إنان مسلم. oo meeshaan iskugu wada imaanay caaw halkan ku afurnay almost dad gaaraya 200 ka badan ah event aad iyo aad u qurxoon ayuu ahaa oo runtii aad iyo aad loo soo agaasimay waxaan number 1 u mahad celinayaa dadka soo maarkino abaabulay oo meeshaan oo runtii eventkan saa u qurxoon u soo waxeeyay iyo dadkii kale ka soo qayb galay oo badankood u badnaayeen dad muslim ah oo maarkino
halkan ku arkeen dad muslimiin ah si u afurayaan iyo ramadaan ahaan ma arkino ka barteen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay ku soo hanuuniyo diinteena muslimka ah marka maxaa la dhahay aad iyo aad ugu mahad celinaya Focus Academy Learning inay ma arkino iftaar gathering saan kale u qabatay community-ga oo aad iyo aad u qurxoon waa mahadsantahay waxaan joognaa IMAX Center at Focus Learning Academy so Focus Learning Academies oo munaasabad maasha Allah oo ah iftaar ay ummadda Soomaaliyeed halkan Columbus iyo community-ga iyo jaaliyadda iyo marti sharaf badan ay qayb ka ahaadeen oo xubnaha boardka oo anigu ka mid ahay ay ka soo qayb galeen waa sanadkii saddexaad la marti gelinayo munaasabad saan oo kala centerkan gymnasium weyn oo laguna tukado ciida lagu bixiyay martiqaad iyo iftaar walaalaha iyo qoysaska iyo ay la wadaageen marxabayn ku aadan munaasabadan bishan dhan ee barakaysan ee Ramadaan aniga iyo walaalo badan oo mas'uuliyiin ah halkan timid oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira sharaf weyn been yahay inaan qayb ka ahaado sanad saddexaad ee socota isla xaruntan ayaana maalinta ciida aynu ku tukan doonaa haddii alla idmo oo baarkinkeedana uu free yahay bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta oo dhanna ay free u tahay oo ilaa iyo markii dugsiga la aasaasay ay ummaddu walaalaha muslimiinta imanayeen marka aad baa u mahadsantiin idinkana aad qayb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكر محمد حسن ما شاء الله عاو waxaan isugu imaanay Focus Learning Academy oo noo qaban qaawiyay afurkan aadka u quruxda badan oo isugu imaadeen dad muslimiin ah dad aan muslimiin ahayn oo kamid ay yihiin mayor office dad ka socda alxamdulillah tani waxay muujinaysaa islaamka wanaagiisa iyo quruxdiisa inaan dadka tusno aan isugu imaadeen meeshan alxamdulillah dad aad u qurux badan in ka badan 200 oo qof ay isugu imaadeen maanta ma sha Allah focusna waxay tahay ayna tuseen tusaale waa sanadkii saddexaad ee maanta ay qabanayaan alxamdulillah dadka waxaan leeyahay ramadaanka Allah naga aqbalo inta sooman inta aan soonneen oo islaamka ahayn ilaahay ha soo hanuuniyo aad ayaan u faraxsanahay maanta inaan isugu imaano Focus Learning Academy. My name is Mohammed and I just want to say I love Focus. It's a very great school. Ever since the new gym opened, I've been coming in every Friday after school. It's really nice and the teachers are super nice. I remember one time that we were doing a problem. We were supposed to find Y for 180 and I found it because the teacher helped me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ajib. I just wanted to say I love the experience of coming here to the iftar Ramadan. It was really fun and interesting. I love seeing so much people here. Alhamdulillah, I had a good time with my friends and family. It was really fun. Everybody was nice. The food was good. I really loved it here. I think that was a great experience to come here. Inshallah, we'll have another event like this happening so soon. Inshallah. maanta waxaa joognaa Focus Community waxaan host gareynaa maanta iftaar Ramadan Mubarak waxaan rajaynaynaa sanadkan sanad ku xigeen oo ka sii fiicnaan doona tan waxaan nii rajaynaynaa Ciid Mubarak waxaa also mahad celinaynaa waalidiinta ciyaalka saaxiibaha dadka meesha isugu imaado quruxda badan aad iyo aad u mahadsantihiin Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdirazaaq Faarax waxaan ahay superintendent schoolkan Focus Learning Academies ee ku yaala Columbus Central and Northern Columbus sharaf ay tahay inaan maanta bulshaweynta islaamka ah ee muslimiinta ah iyo dadka nala degan Central Ohio inay nagala soo qayb galeen xaflad iftar ah oo aanu maanta halkan ku qabanay oo aanu isugu keenay bulshaweynta Soomaaliyeed muslimiinta Ohio degan iyo dadka kale ee bulshada aan la degannahay ka tirsan I am grateful waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan u mahad celinayaa volunteerska eventka maanta ka shaqeeya quruxda badan leh ee soo abaabulay waqtigooda iyo energy-gooda geliyay in ay eventkan quruxda badan leh ay bulshada u suubiyaan waxaa sharaf noo ah inaan bulshaweynta Soomaaliyeed iyo dadka gaar ahaan carruurtooda ay focus dhigtaan inaan ku iraahdo anoo ku hadlayo magaca board of directors keena anoo ku hadlayo magaca shaqaalaheena anoo ku hadlayo magaca waalidiinteena iyo carruurteena inaan iraahdo Ramadaan wanaagsan iyo Ciid Mubaarak to the community iskuulkeena mar walba wuxuu hoos galayaa events bulshadeena lagu taban taabinayo la isugu keenayo khayrna looga shaqeynayo sanad kasta iskuulkeena waxa uu hoos galayaa ciidaha dadka muslimiinta ah inay halkan isugu yimaadaan ku dukadaan waxaan leenahay gym aad u weyn
oo qaadi kara ilaa iyo 10,000 oo qofood bulshada Soomaaliyeed bulshooyinka Islaamka ah iyo bulshada aan la degannahay oo dhanna way ka faa'iideystaan and I am very happy farxad waxa ii ah in aan nahay representation dadka Soomaaliyeed dadka muslimiinta ah iyo dadka Central Ohio la degan ay ku faani karaan inaan nahay and thank you very much and we are grateful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. maanta waxaan imaanay afur sharaf oo iskuulkeena na cazumay maasha Allah sanadkan waa sanadkii saddexaad oo la sameynayo and ajir way qaateen maanta iskuulka waalidiinta waxaan ka mid ahay iskuulkan dhiganay almost 9 sano wiilba hadda iga graduate caruurteedii kale way soo socotay iyagan graduate caruur badan oo waalidiin waay eedooyin waay habaryaro waay baa graduate iskuulku waa iskuulkeeni waa Somali Community School imaada ka soo qayb gala service-kooda uu fiican yahay maasha Allah aniga waan ku haysanaa because of waa meel aad afkaaga qofku la hadlaa helaysid waa meel markaad timaado qofku qanciyo kan ugu sareeya principal-ka ilaa kan ugu hooseeya isku af ku hadlayaan. Hello, my name is Musa Musa and I'm an 8th grader and I go to Focus Learning Academy of Northern Columbus and I wanted to tell you guys that this was an amazing dinner. It was wonderful and beautiful and that you guys should come next year because we're going to do another one next year and I'll see you in tune.